igala qayb qaado dhugashada ku fakiridda iyo dul istaagista abuuristan weyn ee eebbe oo inoogu soo dir muuqaal WhatsApp nambarkan hoos ku qoran aad ku cadaynaysid dul istaagidaada iyo ku fakiristaada abuuristan quruxda badan ee eebbaha weyn. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. farmashi yar waa naynaysta ay u garanayaan culimadu shinnida. ma sax baa in malabku uu dawo u yahay cudurro fara badan? kala duwanaanshiyaha dhadhanka iyo kalarka malabka ma waxaa sabab u ah kala duwanaanshiyaha shinnida mase sir kala jirto? kaalay oo ila ogaaw. sida caadada ah dhadhanka dawadu waa xaraar ilaa daawadan maahane. malabka waxaa xumaan ka nasahan eebbaha shinnida baray cilmiga iyo fanka handasada injineernimada iyo wax soo saarka. waa warshad aanan garanaynin isku dhexyaac iyo khalkhal marnaba ku dhicin abuurista eebbaha weyn subxaana wa tacaala kan wax walba sugay. mucjizada aayadaha qur-aanka ah waa waxaanan dhammaad lahayn. maalinba waxyaabaha bani aadamku iktishaafaya, waayo waa oraah ilaah xaggii ka timid. ilaahna waa ilaahii caalamka weeye, boqorkii caalamka weeye. cilmigiisa wax laga dabatay karo la gaari kara maaha. walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi, shayin walax yar oo cilmigiisa kamid ah, shay kamid ah ma aanu koobi karno. sidaasaa maalinba maalinta ka dambaysa cilmiga furuuc buu u kala baxayaa. farac kastana wax laga dabatay kara maaha. wax yar wixii laga ogaado waxaa la ogaanayaa inaan wax badan laga ogeyn. shinnidu waa farmashi dhammaystiran, waana farmashiga ugu wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray. ilaahay qur-aanku wuxuu ku sheegay ereyga shifaa 4 jeer si cad oo saraaxa ah. 3 qur-aanka ayay la xiriirtay oo ilaahay ku tilmaamay inuu yahay shifaa. mar afaraadkane waxa ay la xiriirtay oo shifaacaas ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay shinnida oo ah cayayaan ka mid ah cayayaanada ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray. erayada ayadda erey buu maaragtay qiimi u leeyahay, mucjizana u yahay. wa awxaa rabbuka ila naxli. erayadaas waxaa laynoogu sheegayaa in ilaah subxaana wa tacaala uu waxyoonayo shinnidii. shinnidu waxay ku socotaa waxyi ilaahiya. waxyiguna maaha waxyigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo kale malag loo soo dirayay. waa ilhaam la geliyey, nafsadeeda la geliyey. waxbaa lagu ilhaaminayaa, lagu riixayaa, wadadeediina waa la tusinayaa. shinnidaas waxaa loo waxyoonayaa an ittakhidii min aljibaali buyuutan, inay guryo ka dhisato buuraha, wa min ashajari dhirta, wa mimaa yacrishun iyo curuushta carshiyada bani aadamku u dhiso shinnida suu malab uga helo. kasoo bilow waagii hore dhoobada iyo caleemaha dhirta laga soo jaro iyo laamaha dhirta iyo dadku ay adeegsan jireen, ilaa maanta la adeegsado qalab casriya oo shinnida loo dhiso say u degto malab u dhasho. 3daas meel oo ayaddu aynoo tilmaamayso waa 3da meel oo shinnidu degto: buuraha, dhirta iyo carshiga. siday usoo kala horeeyaan bayna u kala faa'iido badan yihiin. malabka ay ku dhasho guryahaas ay dhisato, malabka ugu qiimiga badan waa shinnida buuraha degan malabka laga dhaliyo. malabka labaad waa malabka laga dhaliyo shinnida laga helo shinnida dhirta degan. malabka saddexaad oo qiimiga leh waa ka qiimi yar, laakiin labada hore waa malabka
dadka carshiyada ay dhisaan. Shinnida laynoo sheegayo waxay ka mid tahay xasharaadka buuba. shinnidu waa cayayaanka keli ah ee soo saara cunto uu basharku cuni karayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka markuu shinnida ka hadlayay kumuunan xusin daawo kumuunan tilmaamin daawo wuxuu ku tilmaamay inay tahay shifaa caafimaad. haddaad dhahno daaweyn waxay noqon karaysaa optional inuu qofku ku caafimaado iyo inuu ku caafimaadi kari waayo labadaba. laakiin markaad dhahno shifaa micnaheedu waxaa waaye caafimaad dhammaystiran. ilaahay subxaanahu wa tacaala si cad oo saraaxa ah ayuu ku tilmaamay inay shifaa tahay oo caafimaad ay tahay. waa ay kala weyn tahay 20,000 oo nooc oo qowmiyadood oo shinni ah baa jira. waxayna ku nooshahay qaaradaha 5 ah oo dhan ayaa laga helaa. weynankeeda waa kala waaweyn yihiin 2 milimitir ilaa iyo 9 milimitir baa dherarkooda uu leeyahay. kuwa ugu yaryarna waa 2 milimitir, kuwa waaweynna waa 39, inta kalena way u dhexeeyaan. shinnidu sida quraanyada aan shalay soo aragnay waxay ka kooban tahay madax, feero iyo calool. waxay leedahay 8 indhood, 3 waaweyn iyo 5 yaryar bay madaxa ku wadataa. waxay leedahay cirbad ay ku dagaalanto wixii soo weerara. shinnidu maaha bahal aggressive ah oo dagaalyahan oo dagaalanta maahan. laakiin markii nafteeda ama carshigeeda meeshay degan tahay ay dareento in cadow soo weeraray, cadowgaas ama dad ha aadaan ama xoolo kale ha aadaan, waxay ku dagaalantaa cirbadaas mudaca ah bay ku muddaa. mudacaasi waxaa la socda sun magaceeda la yiraahdo phynol. suntaasay ku muddaa waxa ay la dirirayso. shinnidu waxay cuntaa oo soo urursataa oo ay ku nooshahay xubuubta pollen, xubuubta bacriminta ee dhirta. dhir oo dhan way isbacrimisaa, dhir oo dhanna xubuub bay leedahay. sidaas baa aayadda qur-aanka ah waxay inoogu tilmaamaysaa waxyiga loo waxyoonayo. waxaa ka mid ah thumma kulii min kulli thamaraat, miro idaylkeed cun. macnaha geed walba waxay ka qaadanaysaa oo ay ka cuntaa xubuubtaas bacriminta. kadib markaan maqlay hadallada ku saabsan shinnida iyo ka sheekeynteeda iyo dadka mutakhasisiinta ee marka ay ka sheekeynayaan shinnidii iyo icjaaska shinnida iyo malabka iyo ficlan aad baan ula yaabay. sidaa darteed ayaan ku go'aansanay inaan booqanno meel lagu xanaaneeyo oo lagu dhooro shinnida si aan tijaabada iyo experience-ga iyo waayo aragnimada wax badan ula noolaano oo wax badan ka soo ogaano shinnida. رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك من هو كان لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول الوزر والوله. qaybtan hadaad fiirisid waa qaybta ee shinnida ilmaheeda ku dhashay, ilmaheeda ukuunkeeda meesha dhex yaalo. dhinacan kalena hadaad fiirisid gacanta ku taaba waa arkaysaa waxa waaye gacanta si fiican u saartid ama meesha kusoo jiid waa malabkii waaye, malabkii. dhinaca gudahan waxa waa ukuumanka, dhinacan waa malabkii. bismillaahir rahmaanir rahiim. yee ankal nikalo ايه قفته ايه شيخ وضع يا عبالك خاسك تاوي؟ خاسك تاوي بسم الله تعال شيء ما شاء الله dhameystirnaan xasidnimo wax la yiraahdo iyo masar kama jirto shinnida dhexdeeda aslan at all jacayl la yaab leh oo dhameystiran oo aad cajiib u ah
adiga mas'uuliyadaada waxaa waaye doorkaaga inaad cuntada keentid aniga mas'uuliyadeeda iyo doorkayga waa inaan keediyo oo bakhaar ku hayo adiga doorkaaga iyo howlaha waa inaad qalajisid adiga doorkaaga waxaa waaye inaad tuugada iyo in la xada ka ilaalisid oo ilaalisid subxaan allah waa cajiib yacni hooyada keli ah ayaa ayaga guriga joogto oo ukumihii dhalayso iyana cajiib aad bay u diyaarsan yihiin oo u nidaamsan yihiin well organized munadamiin u yihiin qaybtani kor adaa aragtidna waxaa waaye waa malabkii waaye qaybta hoosna waxay dhigataa shinnida ukumankeeda dhigataa ilmaheeda sida kuwa shinnida duurjoogay tan waa isku mid saalan duurjoogna adaa aragtid duurjoogi tan wuxuu kala duwan tan anaga box baa dhex gelinay boxkan waxaan u gelinay intuu duurjoog wax ilaaliyo male mararka qaar malabkii wax markay sameynayaan xayawaano kale wax baa ka cuno iyo bahalo kale energygeeda marka badbaada markay boxkan ku jirto mid banaankana temperaturekeeda heer kuleelkeedina iida samaysata ma ilaashata way anagana inta u ilaalina marka waxaa laga yaabaa inta meeshii duurjoog hal mar dhalay in 3 mar ka dhalay meeshii duurjoog 5 litir oo malab sameyn leh inta waxaa laga yaabaa 15 kilo malab inay samayso shinnida oo idin hal shaqo isku mid ma qabtaan mid walba waxay leedahay shaqo iyo waajibaad ayada u gaar ah mid baa baxda si ay u keento dabaqa mid baa iyana shaqaale ah oo shaqooyinka qabato shaqeysa mid baa waardiye ah oo wax ilaalisa sidoo kale waxa iyana halka ka marnayn boqoradii الذنب يثقل والعشق يحرق فأين أمضي وحولي الوزر والوله